عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يالدوان شبكة الجزيرة وحي باهيسي موضوع أي ugu magac dartay xilligii ay Soomaaliya gargaarka u diri jirtay Saudi Arabia. Warbaahinta Aljazeera ee ku hadasha afka Carabiga ayaa waxay maqaal dheer ka soo qaadatay qoraal dheer oo ciwaankeedu ahaa Soomaaliya dalkii gargaarka u diri jiray Sacuudiga. Waxa maqaalkan qoray Mucaad Maxamed Alxaaji Ahmed oo ah qoraa Carbeed oo u dhashay dalka Falastiin. Maqaalkan waxa uu ku bilaabmayaa sharaxaad ku aadan xaaladda Soomaaliya ee maanta oo waxa uu leeyahay waxa laga maqlaa dalkaasi kaliya dhibaatooyin sida burcadbadeed hogaamiyaal kooxeed kooxo hubaysan dambiilayaal hubaysan oo ay adag tahay buu in maanta wax wanaagsan laga maqlo Soomaaliya balse taa bedelkeeda waxa uu barbar dhigayaa qoraalkiisa wajigii wanaagsanaa iyo taariikhdii ay soo martay Soomaaliya. Qoraagani waxa uu sheegay in inkastoo horumar la taaban karo uu jiro haddana waxa wali maskaxda dunida ku qufulan dhibaatada ka taagan Soomaaliya oo intooda badan Soomaaliya tusaale ahaan u soo qaata dadka dunidu marka ay ka digayaan in dal kale uu qaado wadada burburka balse Soomaaliyada maanta wareersan ee kala tagtay dhiigga qabyaalada dhexda baalatay weligeed sidan ma ahaan jirin. Xornimadii kadib Soomaaliya waxa loogu yeeri jiray Switzerland qaaradda Afrika maxaa yeelay dadkeedu waxay lahaayeen xoolo badan iyo beero wax soo saarka ku fiican iyo dhul buuraley ah oo cagaaran. Qoraagani waxa uu leeyahay Soomaaliya waxay hormood u ahayd dimuqraadiyadda iyo awoodda oo si nabad ah la isugu wareejiyo wixii ka horreeyay afgambigii Maxamed Siyaad Barre ee dalka ka dhacay Oktoobar 1969. Qoraagani waxa uu sheegay in xilligii ay dhibaatada badan ka jirtay dhulka muslimiinta qofkii lagu badbaaday uu ahaa hogaamiyihii boqortooyada cadaaladda Axmed Ibraahim oo Soomaalidu ay u taqaano Axmed Gurey. wuxuu qabriga nabiga ka difaacay isbahaysi ka dhaxeeyay Xabashida iyo Boortaqiiska kuwaas oo doonayay in ay qabsadaan magaalada Madiina sidoo kalena doonayay in ay qaataan qabrigii nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee si ay ugu gorgortamaan magaalada Qudus oo ay muslimiintu haysteen. Ugu dambeyntii Axmed Gurey waxa uu suurta gashay buu Qoraagani inuu ka guuleysto oo uu dilo hogaamiyihii Boortaqiiska waa ninkii ay walaalaha ahaayeen Vasco da Gama. Maqaalkani wuxuu soo xigtay qoraaga taariikhda ee Cabdulqaadir bin Cabdalla Ciidruus oo sheegay in Axmed Gurey uu markii dambe gaadhay guulo waaweyn oo magaalooyin badan ka furtay Xabashida. Maqaalka waxa kale oo uu sheegaya in guulaha uu gaadhay Axmed Gurey ay la mid yihiin kuwii la gaadhay xilligii saxaabada. Qoraagan ayaa waxa uu sheegay in nuxurka maqaalkiisu uu yahay in Soomaalida maanta sidan ay ahaan jireen dad hodan ah oo Sacuudiga gaarsiiyay gargaar inkasta oo uu sheegay in dadka qaar ay doonayaan inay arrintaasi dafiraan. Qoraaga ayaa waxa uu yiri intii aan la helin batroolka Sacuudigu waxa uu ahaa dal faqiir ah oo sabool ah dadkiisuna waxay ku noolaayeen timir iyo caano oo kaliya waxaana taariikhda ku cad in abaar ballaadhan ay ku dhufatay Sacuudiga sanadkii 1909 waxay dadku cuni jireen xayawaanada kala duwan si ay noloshooda u badbaadiyaan. xilligaas Soomaalidu aad ay qani u ahaayeen oo xataa waxa la wariyaa waqtiyadaasi in qofka Soomaaliga ahay inta uu neefka qasho kaliya uu ka cuno beerka kadibna inta kale uu tuuri jiray. waa taariikh soo martay dadka Soomaaliyeed. taariikhdu waxay qoraysaa in culimada Soomaalidu ay xilligaas fatwoodeen in xoolo sadaqa ah loo diro dadka Sacuudiga waxaana xigtay in ganacsatada Soomaalidu ay bilaabeen in halkaasi u raraan xoolo nool raashin iyo xitaa dahab. Soomaaliyada maanta jirta waxay ku sugan tahay xaalad aan wanaagsanayn waxay ahaan jirtay dimuqraadi aan xusuusta ka bixin karin maantana waxay noqotay maamulo yaryar oo kala tagan oo taag daran. waxay hore u ahaan jirtay aag cagaaran oo leh doomo dunida oo dhan u kala goosha oo kaalmo gaarsiiya hase yeeshee hadda waxay noqotay dal ay ka jirto gaajo iyo rafaad balse taariikhda ayaan ahayn mid hilmaamaysa sida uu sheegay qoraaga mawduucani waa ninka lagu magacaabo Mucaad Maxamed Alxaaji Ahmed oo ah qoraa Carbeed oo u dhashay dalka Falastiin. mawduucaasina halkaas ay noo joogo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.